Daawadayaal, halkani waa Go Media. Waanu idinka soo tabin doonaa wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya dalka Iran. Dowladda Mareykanka oo wadaxaajood kula jirtay dalka Iran muddooyinkii ugu dambeeyay. Wadahadalladaas oo ku saabsanaa nukliyeerka Iran samaysanayso in la joojiyo gebi ahaantiiba si Iran cunaqabataynta looga qaado, ayaa waxa uu marayaa wejigiisii ugu dambeeyay wadahadalka, waxaana la isku mari laayahay weli alaan in ay isla dhaafaan labada qodob ee kala ah Iran oo la hordhigay inay gebi ahaanba iska joojiso hubkeeda nukliyeerka, kadibna ay joojiso samaysashada gantaalada ballistic missiles loo yaqaano ama balastiga. Iran taas gebi ahaanba way diiday, waxa ay tiri oo ka soo horjeesatay inaanay aqbalayn marnaba inay joojiso gantaaladeeda balastiga. Hase ahaatee, Iran waxa ay ogoshahay inay joojiso bacrinta uranium-ta nukliyeerka laga sameeyo, oo ay halkii heshiiskii hore ku laabato ee qaramada midoobay iyo dowladaha reer galbeedka ee ka mamnuucayay Iran inay hesho qunbulad nukliyeer ah ama ay samaysato qunbulad nukliyeer ah, taasoo caqabad noqotay wadahadalkii ku noqotay Mareykanka iyo Iran u dhexeeyay.